صدح عمل markaad hayso hadaad qalbigaaga khushuucad ka weyday bay culimadu yiraahdeen qalbigaagaasi uu dhisay heerada soo dhaweeyay quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid hadii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla urtagin marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tadma'innu qulubuhum bidhikri illah ala bidhikri illah tadma'innu alqulub ilaahay alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay ee qulubtoodu taacada ilaahay iyo dhikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yiri ala intabihu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya wala yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabira waman asdaqu min allahi qila ilaahay baa ku waramayo kule war qalbigiinaasi wax kala ku xasilmaayo aniga macrifadadu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaysta qalbigu quraanku ku raaxaysta qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaysta qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaysta nacam nina aymada muslimiinta kamida ayaa oran jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawat alqur'aani bitadabbur quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarru 'inda as-sahar iyo waqti as-sahar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajoodo wa khalaa'u al-badni iyo calooshaada mar walba badnaata وكثرة الصيام بعلماء الليل نقف الصوم في سبط ومجالسة الصالحين تذكر ونكسنوا لا فريش شن تاسع علماء الليل قلبي قد ويسا تلاوة القرآن بالتدبر كان القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف نجمع أصحاب الرسول رضي الله عنهم لقى يا أبا هل آية القرآن سيده habeenka ugu celcelinayaan buugu u baryaayay wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun sufyan ath-thawri rahimahullah ayada quraanku habeenkii markuu salaati leelkii xidhay markuu gaadhay wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun waxaysan ilaahay kamalaynayn ayay kala kulmay banka qiyaame haduu laha khayr baan wataa may khayrkiisi maaha arintu way ka weyntahay salaad baan wataa salaada waa lagu badbaadaya la shakka laakiin muuminka halka markuu banka qiyaamay ilaahay hor joogsado salaad iyo soonkiisi eegi maaye ilaahay raxmadiisa uu maanta eegaya qofka muuminka ilaahu raxmadaadu uu leeyahay aayada quraanku waa ugu bariyay Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu markuu nabigeenu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nabiga lagu yiri salaadii baa taagan nabi Allah markaasuu nabigu Abu Bakr u sheegay umada salaada ka bixiyay عائشة رضي الله عنها وأكتاغني النبي آيات كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبا بكر وأن قلب جلعسا ويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هدو قرآن كأخرينا وهنتي سآيا قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسكيت كي النبي الصوق لي وعوارك إن ير وصورة الطور كنت كان قيام الليل كي قرآن كي سيبو دقيستي markuu gaadhay yarkii yara inna cadaaba rabbika la waaqi' cadaabka rabbiga waa kii dhici doona weeyaan aayada Umar markii uu gaadhayna dhulku ku dhacay Umar ibn Khattab intuu la qaaday ayaa gurigiisii la geeyay bil ku dhanbuu xanuunsanaa xanuunkiisa meeshuu kaga yimidna lama ogeyn Miqdaad radiyallahu anhu saxaabigii la oran jiray Miqdaad ibn al-Aswad habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tiri sidaas uu galgalan jiray sidaas uu habeenkii u galgalan jiray sidaas markaas ay ku tiri war maxaa la galgalan maad bugtaa maad seexatida markaas uu oran jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu oran jiray yakhafuun quraankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaabo hal aayad oo quraana habeenka dhan inuu ku soo jeeday nabigeenu kaleey salaatu wassalaam waa kii abi bilaal ba u yimid salaadii markay gaadhay ya rasuulullah salaadii ba laga sugayaa waa nabiga lilmada ka daadatay maalintaas garkiisi intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wajiga uu dhulka ku hayeen way qoysay markaasuu nabigu ku yiri ya bilaal
حليت ولا آياتها القرآن كيقول صدقي ويل لمن قرأها ولم يتفكر إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحلي يقول صدقي بالنبي يقولي نك آياتها أخريا إن أنت تدبرون أن تفكرين كاسو خسارة ورسولك يقولي قف كستمان ورئيسو نولشان فهم الله بقرن فقير كي يوتك نولشان فهم الله تاجر كي يوتك نولشان فهم الله مدح يوتك نولشان فهم الله مليونير كي يوتك نولشان فهم الله كي ميغا جوغي نولشو فهم الله كي مغالا جوغي نولشو فهم الله كي افريكا جوغي نولشو فهم الله كي قارده او طلابه قارadaha gaalada نولشو فهم الله كي ضيح تغي نولشو فهم الله نبا مالين دو تقصى عجيب اي شيء لبا كونيه 17 wadanadan la isku yiraahdo G20 labaatanka wadan adduunka ugu warshada badan maal qabeenadoodii baa shir wadanka Geneva leeyahay isku yimaadeen dhakhtarku ka aqoon badna caalamkana way ku casuumadeen shirkii waxay yiraahdeen raggani waa ragga adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxa ku jira wadana dhan ka maal badan wadana dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay buu qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxo ma hayno maxay yiraahdeen raaxo ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal galino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoonkeena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday oo dhimanaysa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacallaa bay yiraahdeen oo dawooyin iyo isboor iyo waxbaan sameeynaa bay yiraahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tan hor taaganeen habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii xal u keena ma keeni karaan هر مكاني كرام يا مكاني كرام مكاني كرام سرت النولش أدون كنيك هلا مانتا وأنا كإله معرفة دي سهلة سيد الرب جا كادونا يعدك ويال نولش أدوية إله بكون فضيلين